Soomaalida maanta ummad ahaan iyo qaran ahaan midna uma badqabto oo waxay maraysaa heerkii ugu xumaa taariikhda dheer oo uu jiray unuga Soomaaliyeed. Waxaa dhintay Soomaalinimadii, qarannimadii iyo islaamnimadii Soomaalidu ku ahayd ummad jirta oo magac iyo mabda'ba leh. waxaa dadka taariikhyahanka ay sheegaan in Soomaalidu ay leedahay cadow badan oo muslim iyo gaalaba isugu jira, kuwaasi oo dana badan oo siyaasadeed ka leh dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. Soomaalidu horta waa ummad boqolkiiba boqol muslim ah, 10 milyan iyo wixii lagu daro oo ah tiro ahaan. waa ummad haysata dhul aad u ballaaran marka loo fiiriyo tirada dadka. waa ummad leh xeeb aad iyo aad u dheer. waa ummad ay ku wareegsan yihiin 150 milyan oo Afrikaan ah oo naga diin duwan. waa ummado fara badan oo adduunkaahi uu damac kaga jiro khayraadkeeda iyo badaheeda, tii oo ay islaam tahay, tii oo ay jiraan ururo xag jiraho badan oo diini ah. Soomaaliya markaan dib u laabto, Soomaalidu waa qaran, sidaasay aaminsan tahay inay tahay qaran. xornimadii qaatay 1960kii labada dhinacba, Somaliland iyo Soomaaliya isku darsadeen. laakiin arintu sidaas ma aha marka ay taagan tahay aragtida reer galbeedka iyo tan Ethiopia. Ethiopia waxay rabtaa wadankan inay soo ceshato, dekadahan inay qaadato, sida kaliya ay ku sameyn kartaana hadda adduunkii oo indhihiisu shan uu yahay oo soo jeedo ma dhihi karto wadankii intaan ku duulay ayaan qabsaday. xuduudaha jira, qaramada midoobaa jira. waxay rabtaa dadkan inay bedesho. 30 sano ha ku qaadato, 40 sano ha ku qaadato, 50 sano ha ku qaadato. ardaydaas jaamacadaha ka soo baxaya fikirka hadda 20 sano ka hor qofka Soomaaliga uu ka aaminsan yahay Ethiopia ma aha midka hadda uu ka aaminsan yahay. qofka sideedoo kale 50 jirka ku dhow fikirka uu ka qabo ma aha qofka 30 jirka fikirka uu ka qabo, ma aha qofka 20 jirka. ninka 10 jirka 20 jirka oo Hargeysa jooga waxa u sahlan inuu xiriir la sameeyo kan Addis Ababa jooga marka loo fiiriyo kan Xamar jooga. sidaas ayaa la rabaa in sheekadu ku sii socoto, Soomaalidu is sii nacdo, kala sii fuquuqanto. disintegration of state and society ba Soomaaliya lagu sameyn. hakala jabaan qoys qoys, qabiil qabiil, caa'ilad caa'ilad, fariiqa fariiqa, maxay ahayd madhab madhab, wax kastaba ha noqdaan. markaasaa balkanization lagu sameyn, tuula tuulaa lagu hagaajin oo la oranayo idinka is xukuma, idinka is xukuma, idinka is xukuma. marka ugu dambeysana dissolution baa lagu sameynaa oo lagu laqaya gebigaada oo dhan. waxaan u malaynayaa the script is going on exactly the way we saw it from the beginning. waxaa dhici doonta ilaahay naga koriyo inaan goobjoog ka noqono. waxaa dhici hadda waxaa loo kala hormaraya Ethiopia ninkii raalli ka noqon lahayd, madaxda goboladan yaryarka iyo tuulooyinkan hadda samaysmaya. qofkii Ethiopia raalli ka noqon lahayd, ninbaa Ethiopia ciidankii ugu horreeyay ku faana inuu keenay, ciidan Ethiopian wadanka soo geliyay. ninbaa ku faana inuu wasiiro iyo garab iyo uu ku leeyahay Ethiopia. ninbaa ku faana wax walba waa la soo dhaafay. ninbaa markuu jago isu sharaxayo Ethiopia iska soo sharxa oo Ethiopia Addis Ababa asagoo taagan yiraahda anigu waxaan u tartamayaa dowlad goboleed hebel. haddaysan raalli ka noqo ay tahay sheekadiisu, waxaa iman doonta in lagu kala hormaro ku biirista Ethiopia. loo tago la yiraahdo gobol idinka mid ahanahay, aniga iidaa gobolkeyga, wixii aad danahood ka leedahay waa ku siinayaa, waxaad ii noqotaa maxaa la yiraahdaa backup ii noqo, ii ogolow, iga difaac kuwa kale ugu dhadhagan,
laanlaankan kale oo dhan iga difaac adigan ku hoos tagaa diiwaanka gasho sida baasboor la mideeyo la yiraahdo waa la mideynayaa tareeno laga sameeyo jidad laga sameeyo dekadihii ragga fadhiya Ethiopia noqdaan qunsuliyadahan iyo waxa la baabi'iyo nin district governor ama whatever ah oo Ethiopia hoostaga u yimaado tartiib ummadan Ethiopia loo hoosgeeyo taasoo soo socota maantana midig leeyo shisheeyo magan u yahay maabki dunidu ka baxo oo yaa lagu dul qoray maantana midig leeyo shisheeyo magan u yahay maabki dunidu ka baxo oo yaa lagu dul qoray qofka Soomaaliga gaal ah tahay ma ka yeelay waa ku dilaa waxa laga yaabaa wax gaalnimo keena inuu ku dhaco laakiin okay qofka Soomaaliga Ethiopian ah tahay hadda marxaladan la joogo ma ka yeelay kula dagaalama laakiin siday wax ku socdaan haddii ku sii socdaan waa jiilasha soo socda waa aaminayaan inay yihiin Soomaalinimaduna inay sida hadda gobolku iyo dawlad goboleedku u yahay inay tahay waa aaminayaan waa laga dhaadhicinaa waa la gelinaa waxbaa la soo baraa jaamacadaha ugu badan wax lagu barta hadda waa Ethiopia wax la soo barayaa dhaqankii luqadii hidihii wixii oo dhan dadka Soomaalida ah waxay ku jiraan tiih ay ku jiraan intii 40 sano ku dhawaad ah dawladii Maxamed Siyaad oo caburin jirtay faa'iidooyin badan ayay lahayd ugu yaraan qarannimada ilaalinaysay ugu yaraan qabkii ilaalinaysay tiihay ku jiraan qofka Soomaaliga ma yaqaan wuxuu rabo nin waliba walaalkiisu ka baqaya nin waliba walaalkiisu jaasuusaya nin waliba walaalkiisu darajo ku helaya labada tuulo oo isugu dhow ayaga magacyo la kala baxay oo kala cararay oo kala turkay tii Ethiopia u hormartaana libinta leh hadda sida la aaminsan yahay tii Ethiopia u hormarta ayaa libinta leh Ethiopia anaga saaxiib nala tahay Kenya anaga saaxiib nala tahay hebel anagu caankana leeyahay haddaan nahay daarood haddaan nahay hawiyo haddaan nahay dir haddaan nahay qolba qoys sheego kulligii waa lidu adeegan haya والله وأرن ربح وأرن جرتا إثيوبيا بالمثل مثلا مركان كسوق هذا لبد دولة قبلات أما لبد قبل وصوماليا كان أي هذا وحيابي كده عيبولا حاو دولو يدين عاس لبد قبيل أي قبيل التاجرية مركي التاجرة كان كلا ودريمو إن التاجرة كي كلا وفد ودر إثيوبيا وبالانس جرينيسا كي هوب سينيسا وكي أول تاجرت مع كي كله أي هوب سينيسا كي أول تاجرتها لا براشر لساريا كي دعوها مثل إيمانية مجال أي الشباب كساريسا بريت واحد مودائن يسوب باقين أيدي الشباب هبين مذوبي كبحيسا ضد كي أو دولة نمدي الربي أو كفر حي الشباب أو صور لقد دوبي أما يوتيوب لقد سمي أي الشباب أنت أصلا نقدان مضح كوذا جريان ما آمنسني إثيوبيا ربط إن سومالي نبات كدعبو إثيوبيا جرد قيد أيكو عياريسا سومالي دا قبيل قبيل قبل دقمة تولو سومالي دا مركو وإني فهمان جرت إثيوبيا عياريسو ماشا أمدن إني سيكال الدشو قبائل كالصوماليا أو دمانتو
way adeegsadeen Ethiopia iyo Kenya way adeegsadeen qof ilaahay u naxariistay maahane dad baa waxay isu malaynayaan maryahoodu inay u cadcad yihiin hebel baa adeegsaday Ethiopia hebel baa soo qaatay Soomaaliya let's speak guys true anga run hadal annaga ma maqnin mana aan dalka ka maqnayn dalka joognaa yaa waaye reerka aan Ethiopia soo adeegsan tell me yaawe yaan mingisto soo adeegsan yaan meel soo adeegsan yaan hubka ka soo qaadan si qarankii Soomaaliyeed loo burburiyo yaa waaye idan Soomaalidu waa dambiile yaalbana markaasaan waxaan ku darsanay inta shir laynoo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxaa akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay intaa helin what the hell you are talking about maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay you not other one it's not America it's not Europe it's not Japan it's not Kenya nor it's Ethiopia it's only Somalis who killed themselves waayaga waa idin sheegay runta maaha wallahi billahi inaanay ahayn ciyaar intay Soomaali iska dishay iyo inta Ethiopia ka dishay yaa badan Soomaali intay dishaa badan Soomaali intay laysaa badan Soomaali intay balaayo ku soo hogaamsaa badan one script wiilal yar oo yaa sheekada iska wadaan maanta kuna kor loo qaadi afar maalmood waxa weeyaan Puntland baa garab la siini marka waxoogaa joogto waxaadana afar maalmood kala Somaliland baa garab la siini shan maalmood nin xamar jooga ayaa ma arsaba tagi oo inta si warwareegi shanta kale ku kala lagu hagaajin kasmay hadana kiimaan mar waxa dila joog maxay ahayd digil imirfle iyo baydhabo iyo meelahaas shariifka loo yeeri abihin baad fuudka la cabaysan awgin oo lagu gubi dhageystaan idin sheegay ay wadan dilana hadba soo qasayo qaybiyo xukun baa qorshooyahay ay wadan dilana hadba soo qasayo qaybiyo xukun baa qorshooyahay idagaysta ma kala jeclo daarood iyo maxay ahayd dir iyo hawiyo iyo isaaq iyo nin kasta waxay kala jecel yihiin malaha kulligiin Soomaali baatiin dalkaana loo dalleey ciyaar ma waxaan dii sheegayaa su'aal yaro gaaban baan oo fahamtaan baan idinku siinay kolka inagu laba qoys saddex qoys aan hadisaba u qaadnay iminka in Mareykanka iyo Yurub dhoofinayno in beenta sheegayno imisa habeen walba oromada soo gasha ma la socotaan boorama sheegay hadda ma la socotaan inta habeen walba oromo soo gasho masalan boorama dadka kolka loo suuq aad u fiirsato ilaan maalin walba dumar cusub baa yimaada caruur cusub baa timaada taqriiban habeen walba 20 qoys way soo gashaan oo isjiidanayo oo deena waa masaakiin bandhanaa socda ayaa soo gala magaalada dir dhaba la dhaayay lahaan jiray maanta sayaale ma la socotaan dir dhaba Soomaali baa lahaan jirtay maantana Oromaale Ahmad midib male boqolka sano soo socda ama kontonka sano soo socda boorama inay noqoto magaalo Oromo hodib male dhalinyartan u sheegaya soo koraysa mustaqbal baan higsanaynaa le mustaqbalku haduu yahay ka Yurub eedu yaacaysan anu ka jawaab maayo waa baab kale laakiin haduu mustaqbalku yahay Soomaali inaad tahay oo dawlad yeelan doonto oo wadankan yeelan doonto oo warshada ka samaysan doonto
sida maanta aan u naallo maya weligeedna lagu gaari maayo waada cayrin waa lagula wareegi meel dhaweyta mar baa waxaan idhi haddii muddo yar aan joogno dadba kuma harin waddanka aniga waxaan meel intaan ka dhoofay soomaaliya gudaheeda iyo somaliland gudaheeda ayaan jirtaa oon 600 kilomitir socday waxaa dad kuma arkin meesha geel maan ku arkay in yar waliba geelka gaaban dhinacyaan ku arkay meelna waxaan ku arkay dad maan ku arkay dad ma arkin dad gaalka caya ka tag ilaa aad garawa ka tagta hadda tuulooyin yar markaad waxoogaa socoto bal inta nairobi ka baxay waxaad tagtaa ilaa 30 kilomitir 2 milyan oo qof baad mari soomaaliya oo dhan waxaa ku haray 10 milyan ma dhan waxaa dhinacaha kaa jira 150 milyan oo maaragtay oo jiraan ah waa lagu laqi si fudud baa lagu laqi sideedaba siyaasadaha reer galbeedka laba waxaa xukuma waa dhaqaale oo resources la yidhaahdo iyo diin loobiga diinigaahu waa aad u xoog badan yahay asagaa dhaqaajiya siyaasadaha dhaqaaluhuna meeshiisu ku jiraa soomaaliya baddaas aadka u dheer iyo ummaddaas tirada yar in la milaal rabaa 91 dagaalkii ahliga soomaaliya markuu ka dhacay ummaddii waa la qaxiyey xerooyin qaxootiya looga sameeyey Ethiopia iyo Kenya iyo Yemen iyo meel walba waa la raray ummadda ugu dhaqsaha badan oo Yurub iyo North America iyo Australia loo qaaday ahayd Soomaalidu waxaa loogu talagalay xerooyinka qaxootiga oo transitka ay ku yihiin in lagu dhaqan bedelo horta ilmahooda caruurtooda oo xagga markay tagaan 10 sano 20 sano kadib uu soo baxo jiil cusub oo diintiisii bedelmay waxaa la bedelay ummad 10 milyan oo Andalus ku tiila la bedelay 10 milyan oo waliba waxa la bedelay adiga 800 sano ka hor la bedelay 10 milyan oo hadda waqtigan joogta oo ummadii oo dhan adduunkii oo dhan uu noqday tuulo yar uu noqday bedelkeedu waxba qaadan maysa Allah laakiin waa usoo roboys mama aysan garanin gumaysiga sirtiisa goboladii dhulkeeni hadba qololo koobay garyaqaanku waa kuma yagooyay go'aankii mama aysan garanin gumaysiga sirtiisa goboladii dhulkeeni hadba qololo koobay garyaqaanku waa kuma yagooyay go'aankii soomaalidii qabkii iyo qiimihii iyo isla weynidii iyo soomaalinimadii iyo qarinimadii waa kasii dhimanaysaa nin Soomaali aamini maayo ninka Etoobiyaanka ayuuna ka baqaa na aaminsan yahay marka wax aanan lagugu dayayn ma jirta Soomaaliya mid baa idin sheegay dhageysta haday markaan meesha soo socday baa qof baa ila hadlo wuxuu yiri waniyo xogaa annagana waan ka yar cabsanaynaa bal xabashidii iyo Mareykanka waxa ka sheegin kowdi waxaan iri waxa iyaga aan kala cabsan waayay kala cabsanayo soo saama ayagii waxaan kala cabsan waayay la Mareykan wax ka qood weyn ma jireen shacbigay ka baqaysaa hadda dadka shacbigii weli waxa ku nool fikradii qarannimadii Soomaaliya waxa ku nool Soomaalinimadii waxa ku nool islaamnimadii waxa ku nool fikirkii ahaa shalay Ethiopia waa anagii jabinay waa anagii hilib ceeriin barnay waa anagii Addis Ababa geynay waa anagii weli nool laakiin marka la duugo hebel oo la duugo hebel oo la duugo hebel oo uu soo dhasho hebel iyo hebel aan waxaas oo dhan la socon oo kaliya waxa uu og yahay ay tahay Ethiopia inay Soomaaliya difaacdo inay Soomaaliya u tahay meesha marjaca ay ugu laabtaan xaq siyaasadeed iyo xaq dhaqaale iyo xaq kasta maalintaas ay imaanaysaa iyadoo tartiib haddaan la isdaba laakiin marka la leeyahay Maxamed Cabdullahi Xasan wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo wiilwaal wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo xawataaka waxay noqotay Ethiopian oo loo hagaajiyay taalo looga hagaajiyay waxa lagu leeyahay Axmed Gurey Maxamed Siyaad Baraan kulli ku soo dareen liiska hormaleynaa mardhow markii saal lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay qaran matihida qabiil anaga iga tirsan baad weligaa ahayd anaa ku xukumi intaba ma ahayn lagu hiri
أنا ذيك ترسلت وياه حيل سلاس بأورنجري منالخ بأورنجري. It's not, this is a Bedouin tribes or Somali or part of the Ethiopian empire. You can meet him وياه وعلى كل شيء عسكري according to them. وأنا كل راعي سنة يساعدك. قوتيو إتالكي لا يقوى قدر جيري قومية جعيلكي قرشئيو دلكيسي قصيدو يكودي قولكي عليكي تمعدي أما مورتي وابري قابل ذودي محاقاتي هلي ميي قطوبي كرم لا وياشان كوباني مدك الدور بي قسين ايبا ايدي قرين سيحلو مكوبي قرن كينا كذو ميسان دان انتا وكوبعدي لا وياشان كوباني مدك الدور بي قسين ايبا ايدي قرين سيحلو مكوبي قرن كينا كذو ميسان دان انتا وكوبعدي الشباب ماشى ومتشوكته ومضى الصوماليات ويلش هيرك هنا إما سكحت الله السرية هنا كمديهين إن لقوا هذيجنا هنا أجنبي كل حجران أنت ويسكو جرتا وحيود جوجان انترستيجا عدو الصوماليات هذه الله ترترى ما أنت ما ترتريان يجا ديريان they created themselves مرة ما أنا ترتران وقبل ولا يرويان لما كن صدق كن وعلى وتر تري in less than a month. They wouldn't do that. It gives them the justification for them to be involved in your affairs on a permanent basis. شباب ودنا دوبتين شكذا إقدافي شنت أنا كوهيا شبقاني قليه شوها تيغرب شكذا إقدافي شنت أنا كوهيا شبقاني قليه شوها تيغرب حتى هدي أندبو فيرنو لبي الباتن كي سنة إلا صور دافي dagaalada ahliga markay bilaabanayeen waxa dagaalamahayay oo rasaasta ridahayay oo wax dilahayay oo wax duminahayay waxay ahaayeen dhalinyaro gadaalna odayaal baa ka taagnaa waxa dhimanahayo dhimashadu ku badnaydna waa ayaka waxa dhaawaca uu ku badnaana waa ayaka meeqa dhabarka ka jabtay qofka dhalinyarada markuu dhabarka ka jabo spinal injury la dhaho ama nuqaacu shawki ayaa af carbeedka lagu dhahaa ama saxangullaha dhabar xariirtada xariiriya xangullaha gudaha ku jira markuu dhaawac gaaro meeshuu ka gaaraba intii ka hooseysa waxay noqonaysaa paralysis ay noqonaysaa hadduu qoorta ka gaarana waa quadriplegic baa la dhahaa gacmihii iyo lugihiiba ma controli karahayo maxaa sii dheer waxaa sii dheer saxaradiisa inuusan ogaanaynin markay baxayso markay hayso kaadidana inuusan ogaanaynin waxaa sii dheer inuusan dhalayn ma dhalahayo marka waxaa sii dheer marka sariir buu ku aruuri wadamada hormaray sibay rehabilitation ku sameeyaan sariirtii ku aruuray ayaa jirkiisa cunaysaa sariirtii markaasoo boog barida u badan barida ayaa boog weyn boogtii marka ma daawoobayso markaasay boogtaas fidaysaa ilaa baridii dhammayd ay ka dhammaato hilibkii ee markaas ay lafihii barida ay soo baxaan saxariir haddii hadda la weydiiyo dhalinyarada caynkaas ay ku dhacday marka dambena eventually korkiisa siduu u googo-ahayo sababto blood circulationkii baan jirin dareenkii baan jirin dhiiggii ma soconahayo
korkiisaa googo-ahayaan nabarraa ku yeelan ma raysanahayaan marka dambena aakhirka wuu ku dhimanay asagoo ur iyo ciddiina u adkaysan la meeshuu degan yahay urkeeda iyo maaragtay siliceeda iyo siduu ku nool yahay haddii la weydiiyo asagoo silcahaya ee xag aakhiro u socda maxaa dhaawacaan kugu gaaray haddii la dhaho ma sheegi karahayo ma sheegi karahayo wuxuu ku gaaray wuxuu u dagaalamaya ma sheegi karahayo ninkii dagaalka geliyey ee abaabulahayey uma imaanahayo waxaa la rabaa qalab buu u baahan yahay leg bag wax la dhaho u baahan yahay oo bawdada loogu xiro oo kaadida ku shubanto haddii kale mar kasta waa isqoyni kaadidii baa sii gubaysa markaasuu korkiisa sii googo'i kii dagaalka geliyey uma imaanahayo dib dambe uguma soo noqonahayo islaantii dhashay ayaa la saxariiraysa oo inay rogto dhankan u rog iyo dhankan u gedi iyo inta ka qaad iyo saxarada ka qaad iyo nadiifi nin weyn oo dhallinyaraha 18 jir 20 jir hooyadiis baa ku saxariiraysa gabadha walaashiis xataa uma tegi karto oo ma saacidi karayso waa hooyadiis qofka ka warqabi kara waa hooyadiis qof kale u tegi kara male urkiisa iyo maaragtay xaaladdu ku sugnayeen islaantii hadday marka dhowr jeer leeg baaga ay soo gadato oo $25 ka soo bixiso oo marka dambe ay awoodi weyde ee ay u tagto ninkii dagaalka geliyey ama hogaamiye kooxeed ay u tagto albaabka kama geli karayso sababtoo lama yaqaano ma yaqaano war hebel baan u socdaa war ka baxbay leen askarta meesha joogto waxay leeyihiin ka noqo meesha shaqo kuguma lihin way saxariiraysaa waxay rabtaa leg backs in loo soo gado way saxariiraysaa wiilkeedii oo arkaya horteeda ayuu jirkiisii googo-ahaya markaasuu ku dhimanaya markaasuu ka dhaqaaqahaya maxaad ku dhimatay aakharana waxaa taalla maxaad ku dhimatay waxaa laga yaabaa xabaduu riday inay dad badan dishay intuusan isagu dhaawacmin oo dhabar ka dhaawacmin maxaad ku soo dhimatay malaa'igtu waxay weydiinaysaa war maxaad ku soo dhimatay naftaada maxay ku dhimatay ood ku dishay reer hebel baan u dagaalamaya miyuu leeyahay guri islaameed inaan dhacaan rabay miyuu leeyahay xukun inaan gaaro ayaan rabay miyuu leeyahay xaabada dabka lagu shido ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ay ahayd 22 sano aan soo dhaafnay ilaa haddana ay yihiin ilaa ay hadda u fiirsada wiilasha tiknikada saaran oo dhan waa 18 jir 20 jir 22 jir 23 jir waxay diyaar u yihiin ayagoo baabuurkaa saaran xabad oon lahayn bullet proof haysan ee dhinacyaha ka saaran xabad kastoo ku soo dhacda mid ka mid a inay ku dhacdo ay diyaar u yihiin asbaabo kala duwan xaabo dabka lagu shido oo aan lahayn hadaf ay hiigsanahayaan hadafka keliya waxaa weeye ninkan wuxuu awoodaa qaad in uu isiiyo xoogaa qarash ana isiiyo qaad iyo qarash ayuu wuxuu ku baabi'inaya gacantiisu wuxuu ku baabi'inaya mustaqbilkiisii asaga balse mustaqbilkiisii asaga maahee mustaqbilkii carruurta dhabarkiisa ku jirta mustaqbilkoodiiyuu baabi'inaya ma garawsanaynaa hadda ma ka soo noqon karnaa dib ma u fakeri karnaa ma ka soo noqon karnaa arrintaas ma garan karnaa arrintani in ay halaag iyo hoog noo horseegdayso ma garan karaynaa keennii dhaawacnana inay saxariirtaas u dambayso kii dhintana su-aashaas inay ka soo horrayso oo maxaad ku soo dhimatay uusan aahaa dhaha ma garowsanaynaa dadka dagaalkana gelinahaya dan gaar ah ay naga leeyihiin inayna jirin danahooda gaarka ah shakhsiga inay nagu gaaraan bay rabaan berrina hooyaashan inay albaabada ka xirtaan bay doonahayaan car waxaad i tustiin car waxaad i tustiin wiil dhabarka ka jabay ee dhaawacmay ee paralysis ah qabiil intuu u tago u gurmada
lacag u aruuriya dhahaa aan dibadda u dirno will never happen familkiisa hoose ayay saaran tahay aabbihiis hadduu lacag leeyahay ama walaalihiis lacag leeyihiin ama dibadda ay uga soo dirahayaan ayakay saaran tahay laakiin aabbihiisna uma dagaalamaynin gurigiisana uma dagaalamaynin walaalihiisna uma dagaalamaynin gabar walaashiisoo la kufsanahayana kama celinaynin ee asaga nin kale ujeeddale uusan fahamsanayn ayuu ku dhaawacmay why naftu waxay ku habboon tahay nabad iyo nasteexeenni cawd iyo farxadda lama helo nabad la'aanteeda nuurka iyo iftiin kuma naalo nooluhu dhammaantiiyo nimcadiyo barwaaqadu waa nabadoo nagaataaye naqa iyo doogu waa nacabkoo la xooraaye manaaxo nimay naxdintuu nasiib wadaagaane dibadsana waa iska dhaafaa dadkaaga loo dhinta dhulkaaga la fiirsada dhexda waa loo xirta shabaab dib u socod mujrimiin dhiigyo cab weeye xoolaha dadkooda xalaalsaday shabaab magac dhalinyaro inaad dhahdiin magaceenna ma aha kuma samaynaysiin badiil baan rabnaa inaad dhahdiin shabaabka kuwa la dhahayo dhiiggay cabbaan waa kuwaasaa dadka dilahaya annakuna waxaana la dhahaa dhalinyaro waa kana waxaanan dhisaynaa waa inaad dhahdiin not in my name waa inaad dhahdiin magacayga laguma duminahayo waddanka magacayga dadka laguma dilahayo magacayga dadka laguma barakicinahayo magacayga dadka colaad loogama samaynahayo magacayga dadka laysuguma dirahayo magacayga dadka cabsi laguma gelinayo magacayga dadka laguma mugdi laguma gelinayo magacayga naceeb iyo colaad iyo xasad iyo xiqdi laguma gelinayo inaad dhahdiin baa laydinka rabaa haddii aan isla fahmno arrintaas waan wada guulaysanay qiil dambe ma harin iyo diinto lagu qaraabtaaye iyo diinto lagu qaraabtaaye kenya ayaa waxay ku murmaysaa xuduudda badda soomaaliya iyo kenya in leenka dheer ee badda kala qaybiya labada waddan kala qaybiya in leenka ay kor u qaado sidaan hadda wada jeegnabo dhul la eg intaa 38 kilomitir ay la wareegaysaa xuduudda labada waddan waa taasaa soomaalida aragtaan leenku waa inuu saas u socdaa soomaalida kale kenya waxay ku murmaysaa leenka inuu kor aado dhanka bari aado ayay ku murmaysaa taas oo xalaaleynayso 38 kilomitir oo badda soomaaliya ah oo square ay u xalaaleynaysaa taasoo ay ka helayso 5 ceel oo shidaal taasoo ka dhigaysa kenya waddan aad taajir ugu ah shidaalka halka soomaaliyana dadkii biyo la-aan ay u dhimanayaan ceelal la-aan dadkii caafimaad la-aan wadooyin la-aan iskuul la-aan ay dadkii u baba'san yihiin kenyana ugu faa'iideeyo madaxweynaha kenyana ugu faa'iideeyo dadkiisa kenyaanka taasi mid suurtageli karta maahan waad ogtihiin waddankii waxaa badbaaday 16 dhalinyaro ah aniga waxaan mar walbo aaminsanahay in dhalinyarada soomaaliyeed maalin maalmaha ka mid ay kici doonaan laakiin waan ku rajooynaa waan ku riyoodaa maalin maalmaha ka mid inay dhici doonto waana sugayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ka taga qabiilka habiyi waxba idinma taro daarood waxba idinma taro isaaq waxba idinma taro dir waxba idinma tarto وعد واحد انتر معهن واحد إذن ترى سمع الصوماليين والعافمات ميستان وحبرشة ميستان وحول ميستان محو قبل إذن ترى محو قبل إذن قبتي لو تصنع يا ودنك أيوم بربصنا قبل أيام ودي قال لي محو إذن قبتي إذن سوق كليين بالحساب تما أو واحد سكون فتا مركو واحد باقيا لما لما الصوماليين ترى أنت نحوق إسكسران نور بفيديو وانا أركن وحن لي هاي ولا على شيء قري هداد أول دنا فيديو سمي هداد أول دبلنا اسكو أرولين كتير اسكو أرولو أرنتاني أرين مهمة لا قديكو حملوا بنام بحو والله بالله ما أنت إذنك قفك إثيوبيانك أما كينيانك أما سنقولوا ذا كسيش الشيسة أيها هو بيدك القالسا لكن الصومال وساسو يجري واحد جرى وضياش إنجليز كقرتين لورين جري تمع عبد اللورين جري إذا ما دي دقال كل بعض إن رأي سنقولوا ذا هنو قدرين أنا يهلي بوحنا إنه معنا إنه كصافة أنا واحد شيء يعرف بخذيه معنا يلهدين سنفترض عيدا قاري هاين لكن يقول ما أنت وحنا وجهي إنك الجامعة عندك صوب محمد مستريتكي إنه أنا يروح كينينا سلة دوق هذا أيه قول لك روس كركو صار أيه وهي مدنا قارب وكيها مدنا ترجمان مدنا تهول أنت أصلا قيب سني waxaan quursan jiray bari ka qashaafi jiray hore qasam ma iigu noqoto dani ma iigu qaabato
dulnimo maqaayibay qayrkay ma tuugsaday mahantiyay cadhiili buureed qacda waranka fiiraha qanyada halkay mudan weli maan qandaysanahay waabay qaraariyo maqatuubay jahannama waqtigays qariibaye anay qoontu iigu taal ma xadaatanii qaban ma adaani kala qubin udhahayga soocoto maarunaan qarsoome qarkamayska tuura waxaan qabaa aragti Soomaali ah Soomaali ila NFD ila Djibouti anu wali shantii umma rumaysana shantu way isku hooyo way isku soo hiloobaan ayaa lagu heesi jiray bari shantu way isku hooyo way isku soo hiloobaan markana maxay oran jireen nin lagu saddexdii maqnaadna way soo socdaane nin lagu seexdo ha seexan soo jeedo si weyn u foojugnow waxaas ma hees bahed mise waxayd murti idinku waxba kama garanaysaan dhammaanta martaba qaran buu lahaa iyo sharaf buu lahaa iyo sharaf buu lahaa dalku maamuliyo marbuu macno weyn lahaa haybadiyo martaba qaran buu lahaa milkiyo sharaf buu lahaa milkiyo sharaf buu lahaa sawaaxiliga u dhow sinaawi dalku xukumo suudaan iyo liibiya iyo zimbabwe iyo mozambique zambia iyo guinea bissau amaba saxaraha galbeed central afrikaanka iyo weliba suud nimanka xiga sanciya soonaha cumaan masaarida reer suways sacuudiga xaramku yahay sandaladii reer kuweyd intuusan ku neeflaya sirteeni bay wada hayaan ceebteeni baa suuqa waran dadkeeni baa sayladaha sunuud lagu baayaca udhacjabay sidiisii qarankii mawlicay udhacjabay sidiisii qarankii mawlicay udhacjabay sidiisii qarankii mawlicay iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin horta qabiilka ayaa ugu sarreeya waa wax lagu beer laxabsan karo oo madaxdii Soomaaliya soo martay oo dhan qaab qabiil ayay wax ku kala qoqobi jireen diinta ayaa ku xigtay qarannimada ayaa ugu hooseysay diintiina waa ta loo isticmaalay in maaragtay tawaa'if iyo madaahib iyo wax iska hor imaana iyo in la isla dukan iyo in la isgaraaco iyo in la isdagaalo in madaxa la iska gooyo ayay keentay waa dhab wax badanaa ka jira hadalkaas dadka Soomaalidu ay takoorto takoor waa dhaqan fool xun oo faashist ah waa markaad ka xanaaqaysiin midabkiina madow ilaahay idin dhaliyay in laydinku canaado oo laydinku leedihiin reed waa midabku maysleedihiin adigii baa qof muslima oo walaalka oo Soomaali ah ayaad xaqiraysaa oo dhahaysaa waa reer hebel qurafaad sheekaan jirino qurafaad la sheekeeyaad ka sheegay laga sheegayo dadkaasi marka affirmative action inaan u samaynaa qoran in waxaa lagu ciilay dhaqaalaa lagu ciilay dhulka yaalaan tacliim baa lagu ciilay sababtoo ilmahooda wax ma bari karaan qof aan tacliin lahayna dhulku yaalaa mar kasta soo ma garan socially baa loo ciilay oo waa la takooray waxaan rabaa markaa affirmative action inaan ilmahooda ka canug kastoo 5 jir gaara inuu helo school free ah iyo bas soo qaada inuu helo wasaarad kasta inaan ku xisaabino dadkaas meeqaa ku jirta agaasime
agaasimo meeqaa ku jirta oo dadkaas waxaana dadkaas in dib soomaalidu dhaqankeeda ay u baarto inay waxaan faalsi yihiin ayna jirin markay wax bartaan oo ay dhaqaale yeeshaan qabiilka ugu waaweyn qabiilada ugu waaweyn oo ugu faanka badan ee faanahaya ayaa gabdhahooda ku yaacaya oo guursanahaya wiilashoodana siinahaya waxa waa dhaqaale la isku gumaystay dhaqaale ayaa la isku gumaystay dhaqaalihii marka inay soo gaaraan kor loo soo qaado oo ay soo gaaraan ummadda soo tacliinta inay kor loo soo qaado ay soo gaaraan hablaheeni darajada hablaheeni fidnada dhacday baan intusaya hablaheeni darajada dayaxaa dusheeni iyo dahab lagu mataale dabuub iyo odhaah iyo diin iyo walaalnimo midkaa diin wadaagtaan fidnadu halkay nagaga dhacdaan intusaya hablaha ninkaa diin wadaagtaan iyo gabooyaha u diideen ee tirahdeen ma geyo meeday day qalluuliya dahab iyo naciibaba maanta gaalaan diin lahayn jamaykaan baa u dalaq yidhi madow baana duufsaday oo la daa ku odhan kara madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damamburkiyo damagooniya iska dayo dadka la midho dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damamburkiyo damagooniya iska dayo dadka la midho dadka Just one example. 1973 تقريبا waxaa la sameeyey baxthi baaritaan waxaa samaysay shirkad norwejiana oo shirkadaha xagga badda batroolka baaridiisa ugu haysta waad ogtiin Norway adduunka wadamada ugu horeeya way xagga baaritaanka batroolka badda laga amaanka bariga dawladda Soomaaliyeed bay waxay la gashay heshiis inay baaritaan ku samayso Kismaayo ilaa marka agteeda way sameeyeen baaritaankii mudday wadeen sanad ku dhow 6 bilood siyaado sanad waxay soo saareen report intii yarayday baareen waxay ka soo saareen report kaas wuxuu dhigayay journalkii shirkadana way ku nashriyeen wuxuu report-kaas dhigayay mandiqadaas yar oo ay baareen oo Kiamboni ka soo bilaabanaysa ilaa halkan inay ka heleen 3 god oo waaweyn 3 god oo waaweyn wuxuu ka badan yahay bay yiraahdeen reservaha Norway waxaad ogtiin wadan adduunka wadamada batroolka ugu qanisan waay batroolkooda xataa ma isticmaalaan meel bay dhigaan intaasoo bilyan generationada konton generation oo soo socdahaba meel loo dhigayaa bay leeyihin marka reservagooda waxaa ka badan bay dhaheen 3 god oo halkaan ka helnay waxaad garan kartaa marka interestiga lagu siinayo mushaharooyinka lagu daldalaya adeer bilaash maaha sadaqana maaha وانا ماشي هذا اللي سكوه يستوي مرر بدن هذا مقشين بدأ كان يويد البطي كان يوحي لذا أنا قاله ما يا عندكم ملي هدين ما يا بوق هذا وكجروا بوقنا الجلية صومالينا ضد كذا يجا بوق جلية بوق كمتشرين ما كتشرين بوق دول كصومالي حدودي بوق كمتشرين ما كتشرين به هذا واحد كوكو فينا قفك وحصل شكته أرد ماشي كسر شكاني كسر اشتكو أنا أقول كي واقع حدودي سنولية وأنا يعضها هذا اشتكى قبت أرد هذيك تك ماشي كسر اشتكو Soomaali xuduudeeda waa la yaqaanay
dowlad qaran bay ahayd registraday ku jirtaa meel walbay ku jirtaa united nation bay ku jirtaa waa la yaqaan maxaa aniga igelinaya aniga dooda igelinaya dooda waxaa geliyay dad soomaaliyeed baa geliyay oo mas-uuliyiin isku sheegay iyagaa geliyay dooda maray memorandum saxiixaan maray mid kale saxiixaan maray khilaaf ya disputed area maxaa disputed aniga igelinaya dispute dhulkayga maxaa dispute geliyay maxaa geliyay dispute iyagaa keenay dad soomaaliya baa keenay ma garanayno waxay u keeneen marxaladan aan marayno nabiguna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeya unbaa ka sii xun zamankan aan marayno waxaan shaki ku jirin inuu yahay zaman fitno wixii nebi maxamed ka warramayna in badan oo ka mida waa haynaa waxna horteen bay dhaceen waxna hadday dhacayaan waxna weli waa soo socdaan ummaddani dhibka maanta haysta meel kastood fiirisaba waa wax ciddii garashii caqli leh xanuujisa waa wax lala murgo waa wax lala seexan waayo waa wax aada loola xanuunsado ruuxii damiir ku jiro wax lala xanuunsado way qaybsantay cadowgeedii bay u jabtay waa lagu soo duulay dhulkeedii baa la haystaa khayraadkeedii baa la guranayaa ayadii baa la isku sallidayaa waa gaalkii shaati wuxuu u soo xidhanayaa inuu danaheeda iyo masaalixdeeda ka shaqaynayo ayadiina dhexdeeda inay wax fahanto oy xaqiiqada fahanto oy maslaxadeeda fahanto oy wacyi iyo garasho yeelato ma hayso waxaa dheer waxay noqotay daaq nin walba u bannaan nin alla ninkii rabo uu daaqo cidina ayna cid ka xigin wax alla wixii afkaar kharibnaa oo dhan ayaa ku soo wajahantay afkaar khariban oo dhan adduunka jirtay kaniisaddii baa ka shaqaysanaysa tansiirkii baa ka shaqaysanaya carruurtoodii iyo gabdhahoodii iyo wiilashoodii baa la gaalaysiinaya magacyo kala gedisan dan lagama leh wax sii weynba ma aha afkaar shaati islaam huwan oo inxiraaf iyo fasaad xambaarsan meesha waa iska bannaan tahay nin walowba wadaantaada ku tuuro takfiir iyo khuluwi iyo madhabkii khawaarijta ayaa magac jihaad lagu soo geliyey markaasaa dhiiggooda lagu bannaystay oo culimmadoodii lagu laayay oo dalkoodii lagu burburiyey oo wax waabayeela aan lahayn shiica soo gashay oo oodeedii wadata 1969 waraaqihii hadda waan ka soo tegay laakiin projectorka baan idinku tusi karaa haddaad doontaan maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariistay wuxuu yimi halkan new york press release buu ku qabtay sawirkiisii waan hayaa ay new york times soo qortay new york times baa soo qortay press release buu ka bixiyey new york maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu yidhi baaritaan ay samaysay united nations oo dowladda soomaaliyeed ay kula jirtay iyo kambaniyo dowladda soomaaliyeed ay heshiis la gashay oo baaritaan sameeyey wuu soo dhammaaday wuxuuna sheegay baaritaankaasu soomaaliya uranium badan inuu ku jiro oo reserve ah oo weyn ayay baaritaankii soo saareen tasriixaad intaa ka badanna ma bixinayo buu yidhi laakiin arrinkaas waa intaas joornaalka marka si tacliiqiyey new york times baa warkaadii sii waday waxay dhaheen khubarada aan weydiinay oo warsannay waxay yidhaahdeen adduunka oo dhanba waxaa ku jira 8 milyan oo tan oo uranium quarter of that wuxuu ku jiraa Soomaaliya bay yiraahdeen
quarter of that waa idin keenaya journaalka dowlad bidaliil anuu jeebkay kama keen journaalkiisa ku qoranta New York Times ku qoranta quarter of that waxay ku jirtaa yiraahdeen Soomaaliya that's the uranium petrolka hadal kama taagna hadda waa idin sheegay Norway intay soo saartay markaasa dood la gelin oo la gelini qaylo iyo buuq طيب ilaa maalintii 94 ki ka soo bilow markii uu horeysay 2000 kii carta ay la sameeyay dawladeedii hatta yoomana hada kambariya waxa la saxiixanaya petrol baris qolow hebel wala saxiix qolow hebel wala saxiix qolow hebel wala saxiix qolow hebel kulligood waa in rekoorkooda maxaad haysaa oo la saxiixaysaa yaa tahay adiga yaa tahay maxaa haysaa mas'uuliyadda haysaa dalkee haysaa gacanta ku haysaa ya ummadaha horumaray waxay ku hormareen wax soo saar waxay ku hormareen hal curin waxay ku hormareen shaqo dheeri ah waddanka Mareykanka ayaa adduunka ugu qanisan ilaahayna ku manaysta technology iyo cilmi iyo xoolo iyo barwaaqo iyo dhul weyn iyo dad badan waddanka Mareykanka qof waddan bini aadan ah oo ka shaqo badan ma jiro waddan ka shaqo badan ma jiro injineeradoodu iyo dadkooda scientistiyaasha ah saacadaha ay shaqaynayaan moogay intay seexdaan raashin kama dhergaano calooshi iyo baridii ma weynaadaan balse wuxuu ku leeyahay gurigu workshop ku leeyahay gurigiisa ayagoo labaha isu imaani markaasay wax hindisi weekendigiisu wax alif waxbuu soo saari waddankan ad ka dhalateen ee adinku mustaqbalka u tihiin ee Soomaaliya la dhaho wax soo saar ma laha whatsoever nin Chinese xamar dhex maray Chinese ki soo maartay wadooyinkii sameyn jiray bari hore iyo meesha tiyaatarka la dhisi jiray ee wax u dhisi jiray Soomaalidii Maxamed Siyaad Barre madaxda ka meel la baarno bajante fiisha goberno kafeen salaale iyo wadaadka Marwaas la dhado fagaaro weyn oo halka xamar weyn ku yaal ayaa subaxii la isku yimaada halkaas laga sheekeeyaa journal xigtii October la dhado imagana kuwa kale oo maxay la jamhuuriyad la dhado bay halka la taagan yihiin iyo halka waa la wada sheekeynaya maxan baa la yiri kana la yiri waxa dadkii buu saaw waa dhalinyartii mutacallimiintii oo dhan markaas uu dadkani meen shaqeynayeen buu markaas lama shaqeynayaan maxay qabanayaan ee shaqaba ma hayaan waa saas iska sheekaysanayaan xagee wax ka cunaan buu markaas xaafaduun bay tagaan dad bay wax la cunaan masaasaha dawladnimo way idinka dheertay buu inta xoog gaasoon dhiblaash wax ku cunayo xoog gaas sheekaynayaa intuu wax ku cunayo bilaash wax ku cunayo dawladnimaha sugan oo yiri waa nin kaliya oo fagaara lagu reesaw eegay ma aha inuu riyoonayo ma aha inuu khayaal ka sheekaynayo waa runtii aawad waxa weeyaan waa toddobaatanadii markaan sheekaynay ninkaas awliya meena sanad waa maxay sanad deysweydii maanta dawladda Soomaaliyeed gabigeedii bay isweydii ilaa Kismaayo ilaa law yacad halkay martay dawladda waxa ka soo haray wax saa wax u cunay yaa ka soo haray oo waliba fariida والله لو حنبلنا إن ودك إن عبرنا إن فرا حليري دوما كل ذنيا حيدتكم على ما يشين مانجاب كتلذي سوا مكان جوبي ميدكتوا معي مالا حدي بيدي دوم مكان تحي والله ما تانو خوش ما مولايان مروقين مالو لو كاميرا كوبيرو معدنت ذهبك وجيا وانا جاي وحين لهم الله نفتي ذي إلى اليوم مكسب الجواب ودك كمان مشكلة نكسب حالة وحاول يدوتك هون السلام عليكم ما عندنا واحد تجي ماليشيا واحد جرت قوة يرو لقى جويي أو ماليشيا لقى جويي أو ضدك مسلمين على عين والله يرى هذا سنغافور واحد مقشان صو معها واحد مقشان سنغافور ما سنغافورة
ma taqaanaan masaaxadeedu dhul ahaan intay tahay biliis dadkiina juqraafiga iyo thaqaafada caalamiga leh ila Soomaalidu waa wada siyaasiyiin do you know waa 624 kilometro square waay wadanka dhan oo lagu sheegayo la yiraahdo Singapore ma taqaanaa Soomaaliya meesha ka weyn Singapore dawlad ahaan waxa ka weyn gobolka Banaadir iska dhaaf Soomaaliya gobolka Banaadir just gobolka Banaadir baa wuxuu ka weyn yahay dawladda adduunka dawladaha ugu qanisan kamid ah ee la yiraahdo Singapore gobolka Banaadir baa ka weyn masaaxa ahaan iyo dhul ahaan maaha Soomaaliya oo dhan maaha koonfur oo dhan maaha shabeellooyinka iyo Banaadir maaha just gobolka Banaadir baa ka weyn isaga ka biyo badan isaga ka beero badan isaga ka xoolo badan 624 kilomitir malaha biyo malaha oo baad malaha oo xoolo malaha oo waxay keensado petrol malaha biyaha dibadda laga soo daabulaa still wallahi billahi waa ceeb adduunka يعني عيب ويه إلهي عندنا مظلم وهذا كان إذن كبلا بيه سنغافور 2010 international transparency waxay ka soo gashay numberka saddexaad adduunka ayay ka soo gashay transparency corruption la'aan waxay la tartamaysay Denmark iyo Sweden iyo Finland iyo Norway iyo New Zealand bay number 3 iyo number 4 kula tartamaysay Soomaaliya oo muslimiina oo sunna oo shaaficiya waxay ku jirtay the last in the list 198 dawladood tan ugu dambaysa corruption baba tuuganimo qashin markaas waxa rabtaan Ilaahay hadiyad inuu idin siiyo inuu yiraahdo hooya dawladnimo iyo ammaan iyo nabadgelyo iyo dal hooya that's nonsense waxba kama jiraan sharciga Ilaahay kuma jirto kitaabka Ilaahay kuma taalo waxba looguma hayo Soomaali kitaabka Ilaahay wax looguma hayo dad tuuga waxba looguma hayo dawladnimo looma hayo qarannimo looma hayo dad tuuga waxba lagu soo gaareen looma hayo iyo kuwa taageeraya daba nashreynaya u saabtumaya PhD holders masters baa waxay u saabtumayaan juhalo wadankoodii baabi'inaya iyagiiba baryayaan iyagiiba tuugayaan iyagiiba leeyahay safiir iga dhig wasiir iga dhig hebel iga dhig muxuu ka dhigaa he's nonsense Basani nagaray waa midan illa loo haynay Basani nagaray waa midan illa loo haynay dhalinyaro wadankiina muxuu ii qabtay iyo maxaan ku haystaa iyo muxuu ii yahay ha weydiinina wadankayga sideen u hagaajin karaa maxaan u qaban karaa waa inay idinka timaadaan maalintaad weydiisid wadanka muxuu ii qaban karaa maxaan ku haystaa waa ku baahday shaqo la'aan baan ku ahay hoobaalkii aan ku sii soconnay baad ku sii socotaa sababtoo qof wax qabanaya ma jiro waxaan wada leenahay waxaan weydiinaynaa wax kaloo jinni oo cirka ka yimid iyo wax kale inay wax qabtaan markaas annagu aan ku raaxaysano it will never happen ma dhacayso shan qodob cidii laga helo qodobka koowaad oo sheegaya dhulka in laga faa'iidaysto dushiisa iyo hoostiisaba wixii saaran qodobka labaad oo sheegaya waqtiga la haysta in laga faa'iidaysto oo yacni waqtigu aan innaba lumin qodobka saddexaad oo sheegaya bay leeyihin inuu noqdo ikhtisaasaadkii ama wixii aqoomihii loo baahnaayo dhan inay ummaddani tijaabinayso inay kobciso ama se dhaliso qodobka afraad oo sheegaya inuu nidaamka meesha yaallaa mustaqiri ama mid degan uu yahay ka shanaad oo sheegaya thaqaafada ama biliifka ama cultureka ay dadkani haystaan inuu yahay mid ogol inay aqoontani hore u socoto shantaaba idhaahdaan ciddii laga helo dunida halkay doontaba ha ka deganaanaatee waxaa qasaba inay horu marto waxay u baahan yihiin jiil cusub oo kaca oo qarannimadii sharaftii dadnimadii soomaalinimadii islaamnimadii
soo celiya lagu wacyigeliyo horta khatarta soo socota ninka hargeysa jooga iyo ninka muqdisho jooga in la aaminsiiyo inay yihiin walaalo inay isaga dhow yihiin shaqana isku lahayn Ethiopia in ayaga dhexdooda heshiis la dhigo in ayaga dhexdooda nin walba uu tanaasulo si maaragtay loo soo celiyo qarannimadii iyo heybadii iyo sharaftii Soomaaliyeed walaalayaal dawlad xun dawlad yani la'aan bay dhaantaa annagu waxaan nahay jiilkii ku soo koray oo ku awayban ka dambayna odayaashii naga horreeyeyna waa naga horreeyeen way soo arkeen waxaanu aragnay dawladnimo iyo macaanka ay leedahay saas darteed baan waxaan meesha ordaya iyo waxaan socda magacay doonaan ha sheegtaan diin ha sheegtaan islaam ha sheegtaan wax kale ha sheegtaan ayaanan ka aqbalahayn dawlad la'aan iyo qaran la'aan iyo ummadnimo la'aan wada jirta baan wax ku keenaynaa kana ka aqbali min we're not going to accept that ha dawlad xataa daciifa baa nooga roon oo qaran ah oo ummadnimo ah gabaya caawa waqtigu inagu yaryahay aan sameeyay oo aan Soomaalida kaga hadlayo waa gabay Soomaalinimo waa gabay waqtigiisa leh waa gabay qofkii xishoonaya ee in uu xalaal lagu dhalay uu dib ugu noqon doono faa'iidadii uu lahaa calanka shanta gees leh daayimin uu ilaah yahay loo daysta kibir yahay siduu doono uu yahay ruuxna daa ku odhan karin wuxuu dilo wuxuu daayo wuxuu duul abuurayo dunidaa isdaba taal waa darajo khaaliq ah siduu doona yeeluhu waa darajo khaaliq ah midkuu duunya siiyuu durbadii ka qaada midaan dollar hayn buu daamanka u buuxshaa abaar daran dadku uu ka naxa iyo dirir hooray khayraad deeqdiisa weeyaan waxaan ahay nin dalaba waxaan ahay nin dalabaabi oo diiday oo jabay waxaan ahay nimaan doobi culin 10 diraacood waxaan ahay diirkiisa iyo nimay dhuuxu dirireen waxaan ahay nimaan dadabgalayn dirirka cawleed waxaan ahay nimaan dabxeer wadan duufaanada dhaca waxa diilyada igu wacan daaqaday go'ay darbiga dhiso darbiga dhisaya markuu dumiye saaskii daayaha dagoogmiye qalbigan dhaxal ku aafeeyey Soomaalinimadii way dhibatay qalbigan dhaxal ku aafeeyey daarahan burburay dabashan ooyaysa dooxa ilmada soo rogay dubayda yeelaysa waxa reerba kii ugu daraa u fiirso miya reer kasta bahal nacasa hortaagan waxa reerba kii ugu daraa ugu dulmeerayo ee doqon haco iyo dabaal loo dalqaminayo ama diricyadaydii ragga aqoonta leh dalka wuxuu tari lahaa ama diricyadaydii sandahay bay iga degi weyday war dalkani muu goblamin dalkeenu muu goblamin oo nin ragii kama dawaarayn diriday xariiqan dirida markii cid wax weydiisan waayeen diriday xariiqan ragii daabadaha ciilawgeed waxay daba keena soo sidaan bay iga degi weyday qarandidu daloob maahmaah baa jirta gabayga waan ka baxayaa Soomaaliyeed baasha qarandida leeyahay waa doqon xayawaanada Ilaahay abuuray bay ugu doqonsan tahay god bay qodaa ugxanteeda ay dhigtaa godka ma gashayadu weerka baalka yare leeyahay Soomaaliya ayaa ka cuna Soomaali maanta aniga maxay laaniyo Soomaaliya maxba loo kala go'ay amxaarkii dalku uu furan yahay Soomaaligi la ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah laha masaajidka isoo ku jiro tukanaya la tooganaya qarandidu dalluun bay qodaa waana diba joog waxay dadaaliyo xoog duubiyada maasho dugsigeeda weeruun baahantiya maalmo dabadeed wax la dira dadkaygaa jiroontii doraa dhugan waxay Soomaali 20 sanadood dabada diifta ula jiiftay iyo maanta waxay dabacsan yihiin bayga degi weyday wata farmaajo la soo oriyay waxay maanta dabacsan yihiin bayga degi weyday dibso qofku waa inuu ku maqlaa Ismaaciil Umar Geelaan gabay u tiriyay hayaadeer bigu hayaadeer mucaaridka la heshiis baan ku yiri hayabuudi siiraaye saasoo kale la hadlay dayibna saasaan la hadlayaa waxaan idhi dibso waxa tiraa dibso istaag dhaqankeeni Soomaali baan geel jirayaal baynu nahay dibso waxa tiraahdaa ratiga diida dhuuxyada ratiga qalqaaliga bu dibso baa la yiraahdaa dibso waxa tiraahdaa ratiga diida dhuuxyada
dabar laguma jiideen hadduu daadax kuu yahay waxa dacayda loo qowlala yuusan kaa didin shiniduba ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay shiniduba dowlad bay leedahay iyo maamul daahira ilaahay baa yidhi ku dayda shinida boqor bay ku ururaan aan shaqayn oo u shaqeeyaan waxaa la barayaa cilmiga shurakada la yidhaha shiniduba dowlad bay leedahay iyo maamul daahira iyaduba kala dambayn iyo shaqaysaban ku doogtaa halkay soomaali 20 sano diifta daba dowlad jiiftay iyo maanta dadkaygu waxay dabacsan yihiin bay ga degi weyday haddii duul ilaahay maxaa dhacay markaa maxaa dabadaynugu maarmeeriyey ilaahay qur-aankiisu ku sheegay bal dhegaysta haddii duul ilaahay dariiqii ka leexdaan dumarkiiyo carruurtuu shaydaanku didiyaa dabadeed ka haystaa ninkii doonayow taa arrintaa daliilkeedu diintay ku taalla alumaan odhan wuxuu daayinkan yidhi waqaala allahu tacaala ina allaha laa yuqayiru qowman xataa man yuqayiru bianfusihim daliilkeedu wuxuu yahay ilaa ay dulloobaan ilaahay ma doorsho dadka daacadda wacan dib u eega aayaha xisaabaha dambeeye qiyaamaha daneeya haddaanan cidna ka xishoonayn qiyaamaha dane wixii dume dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalaye bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo damagooniya iska dayo dadka la mid noqo dadka الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. My brothers in Somalia and all over the Muslim world, but specifically to my Somali brothers, I say to you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Skawaran, arimuashide, rarka kawaran, nabat fi ante. I want to give a small message to you, for indeed the Somali people are very dear to my heart, and I love you all for the sake of Allah. It is time to end the Qabaliyah, to end the tribalism, to end the dissension and disunity that has caused so much pain and suffering in Somalia. And it's time for all Somali people to come together. All same deen, same kalima, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as we as mankind, as our beloved Prophet says, Kullukum min Adam wa Adam min Turab. All of you are from Adam and Adam is from dust. So whether you be Ishaqi in the north, or whether you be Mahajarten from Muntiland, or whether you be Hawiya or Marrihan in Mogadishu, Kismayo, it doesn't matter. We are all brothers. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. So we want the mercy of Allah. We want to see the suffering and the conflict and the pain ending in Somalia. We have to come together and unite, inshallah ta'ala, in order that the mercy of Allah should descend upon all the Muslims around the world. But I'm saying for specifically, inshallah ta'ala, for the brothers and sisters in Somalia, Somaliland, Djibouti, Wajir, Garissa, Mandera, Ogaden, inshallah, to come together as one country again. We first have to give to Allah what Allah wants from us, in order for Allah to give to us what we want from Him. Like Allah says in the Hadith Qudsi, يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد لكفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد لأتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. So I say to you, my Somali brothers and sisters, إني أحبكم في الله, I love you for the sake of Allah, and may Allah make us of those in the day of Yawm al-Qiyamah when the call is made, أين المتحابين بجلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. When Allah calls out and say, where are those who have loved each other for my sake? On this day I'm going to put them in my shade, on the day when there is no shade except my shade. Brothers, sisters, وحدوا say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and unite for the love and for the sake of Allah. Inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. This ummah is one ummah, no more. And to our brothers in Shabab, يعني شوية يعني هلك المتنطعون, those who are extreme, they will self-destruct. You know, خير الأمور أوسطها, the best of conditions are those that are in the middle. بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. The Prophet says, make things easy, don't make them difficult. Give glad tidings, don't chase people away. Come to the middle path. Unite, O people of Somalia, for the love and for the sake of Allah, and Allah will make you one of the greatest nations, inshallah ta'ala, that the world has ever seen. Wa akhiru da'wana ani alhamdulillah rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, Sheikh. ummadoo kale maana isku meel la u jeeda
haddii xaajo muhiima muftaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertadaa la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii la ismaagana mar baa la iscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madda qayrka horseediyo maslaxooyinka diidana ma rastuu salfadaa dagaal maatada wiiqana makaanku dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa hadal aad u macaaniya mowqifaan soconayna mooye suu noqon doonee soomaalay dan muhiim iyo haddaad waana maqlaysid wax maamuusan lahayn oo magacooda ku raaciya maal gargaar lagu sheego meelna kugu fillayn inta aad mahayo iyo meeyay ay ku jirtaan mugdi baad huridaanoo markab qud lagu keenaya maquunaad sugataanoo madaal kii idin siyaad magantiisa tihiine mana sheegad sheeyiya mihintooda iyo beenta waad ka maarmi kartaan dad iyo humays maqashaan oo idinkoo isku maanaho isku mowqif ku taagin mawlahay baridaan mar in la isku filnaadana martama u xirataan oo maraa waaxid dalkeenna ma guuraanka iyo qayrka rabbigay ku manaystiyo macdantaa iska taaliyo miidamaad dhurataan oo kulligiin maalqabeen iyo malneer roqotaan oo waddankeena macaaniya mahadsaan gacantiin war maxaa maskaxda iyo miyirkeen ka qaaday war miyaydna arkayn murugmaarugsheeye wax aan ka macaashnay war miyaydna arkayn mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miyaydna arkayn ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyaydna arkayn mashaqada dalka taalla war miyaydna arkayn masiibooyinka muuqda war miyaydna arkayn mahadhooyinka beermay war miyayna arkayn dilka aan marna joogsan war miyayna arkayn inta ruux mudana iyo dar muhiima la laayay war miyayna arkayn malaayiinta qaxaysa war miyayna arkayn inta moolka budlooyinta maayadaa ku dhammaatay war miyayna arkayn dadka meel kasta daadsan war miyayna arkayn macaluusha iyo cayrta war miyayna arkayn musanowga dhallaanka war miyayna arkayn qurbaha maatada joogta midda ay la kulmaan war miyayna arkayn dadka waaye maciinka magaciinina sheegta war miyayna arkayn dhalintiina maxbuusan war miyayna arkayn kuwa jeelka ku mayday war miyayna arkayn mawaadiinta dhammaatay war miyayna arkayn mahuraanada quustay war miyayna arkayn magaca sii dhimanaya war miyayna arkayn dadkeennoo kala maarmin sida loo kala meeray war miyayna arkayn midnimadii ummaddeennoo mahayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo war miyayna arkayn mariidka isticmaalka misna taagan agteenna inuu maamulo ciidoo meel cidla uu ka qaato marrabaan la gumaysana maanta aada ugu dhaarsan war maxaa maskaxda iyo miyirka in ka qaaday maxnad aan baxahayn iyo masiibooyin la yaab leh meel kastoo laga sheego allaahuma naajaynaa muslimiintu dhahaan anna xaaje maruurtiya midda haysa dadkeenna meel kastaan ka caddeeyo murtidaan ku tilmaamaya malaayiin xil u waashay ayagaa isu muuqdeenoo waxbay maqlayaan kiligaa wax maroqsay ku mashquulsan yihiinoo kulligood madaxweyniya mudane aan dhacahaynba mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar horaa lagu daalo waa midday isku seebtaye anoon mawjada oogin waxna aan maldahaynin dan guud halka ay ka maroortay aan marqaato u yeele qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadinahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogo anna xaaje maroortiyo dan guud meelka dhaceeda aan marqaato u yeele qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadinahayow maantay maalin adduun iyo badal weeye la joogee wax markaa ku hor yaalla masna aad sahlanayso berri meel xuntagayiyo wax masaalaxa keenoo dadku ay mahdiyaanoo madmadow aan lahayn labadaa kala miiroo miisaamoo kala saarto midka qayr kala qaata haddii laismaqli waayana mudda waa berri toole mawdna waa mahuraane ilaahuna masaabaxoo noo macin weligeen soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damanbolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damanbolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo naga dibdhigay waniyo haraadna bade armiga hubkiyo bambada asqiya dabrooga dhige ayare madalkeeni danaheeni dowladeeni damiirkeeni mee dabka dhiga doona dabka dhiga
wadankeena wadoona dabka dhiga meelan meelan amaan jirin ma aha to noloshee urugiyo xanuun qaba ma islaanima tiri waddan la kala gooyo laguma galo taariikhda ummad la kala gooyo la kala qoqobo taariikhda laguma galo bal Nelson Mandela fiirsha 27 years buu xirnaa prime timekiisii waqtigiisii noloshiisa ugu fiicnayd ayaa laga xanimay xaaskiisii iyo ilmihiisii markuu soo baxay 5 milyan way cadaanka ma wuxuu dhahay aan aar gudsanno ka waran imagine hadduu dhihi lahaa aan aar gudsanno finish South Africa ma jirteen maanta wuxuu dhahay markaa an markuu la wareego film bay ka sameeyay markuu la wareegay xafiis maalintii ugu horeysay yim la doortay ay cadaankii waxay bilaabeen in ay boorsadiha aruursadaan baakooyin ku gurtaan markuu arkay uu soo dhaxmaray uu arkay tension ka jira ayuu wuxuu ku dhahay igu yeer shaqaalaha dhan madaxtooyada ka igu yeer uu wada yeeray markaasuu wuxuu dhahay waxaan arkayaa buu dhahay tension baan arkayaa wuxuu dhahay wadankan waan wada leenahay qof gooni u leh ma jiro cadaan iyo madow kuma dayanayno dhahay wixii hore dulmigiina lagu sameeyay kuma dayanayno annaka wax afinin ilaahina wuxuu leeyahay waafuna can الناس kuwa dadka cafiya ayuu amaanaya oo markii xumaan laga gala cafiya dadka wuxuu leeyahay marka qofkii rabo waa xor waa tagi karaa laakiin qof meeshaan waa madaxtooyadii qaranku leeyahay imaada jooga shaqaysta qof pressure idinku qaban kara ma jiro wadankeena waxaan u baahannahay dadka caynkaas dadka saas u fikiraya Nelson Mandela hadduu caradii 27 sano caradii ahayd hadduu la soo bixi lahaa ee u dhihi lahaa cadaanka aan ka saarno wallaahi in dhaqaalana oo leen waana burburi lahayd South Africa waana laga kala tegi lahaa haddana waa kaas sabar waqtigaa isbedeli doona marka aad baad mahadsantihiin hadalka waa idinku dheereeyey waa mahadsantihiin wadankiinnii u noqda ha isku iloobina meeshaan ha isku iloobina hadhow ilmihiinna waxay galayeen ilmahooda maaha ilmihiinna ilmahooda generationka saddexaad hadhow meelay ku damayn doonaan ma ogin haddaad meesha laakiin keennii aan hormarino si ilmihiinna ay weli dhaqankiisii ay u haystaan oo ay abtirsigii u haystaan oo ay u haystaan diintii u haystaan oo dhaqankeennii u haystaan anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone dhamanbolkiyo damaxuuniya iska dayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone dhamanbolkiyo damaxgooniya iska dayo dadka la mid noqo dadka haddana cidi uma maqni adaa maslaxada haye haddana cidi uma maqni adaa maslaxada haye sokeeyahan kala margaday alloo marxubaysu geli ducada mustajaaba iyo maqbuula low ka calankanaayahaalahow budhadeena barkiisiyo waxaan ku qabna jacayl qiyaas kuma koobi karayno hadday caanu qubtan ilay dabadood la qabay waxaan dirnay daylada saadaan waacana qabnaa sidaa ku calow qabow qabriga oo galna dhaanta qaabkaan ahay umatuka
kactoosa Soomaaliye waad qallibanteene qabriga gabdhaha dhaanta qaabkaan ahayd dumarkii kactoosa Soomaaliye waad qallibanteene Show